السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كينان مانتو وحاو كميدي هاي عشرة كورسك بروفيشنال انيميشن ميكين ان ادوبي افتر افكت كورسكاس oo lagu baran doono qaababka iyo dariiqyada ugu wanaagsan ee animationada ugu tayada sare leh loo sameeyo sida text animationka amba qoraalada qaabka loogu sameeyo animationiska amba dhaqdhaqaaqyada motion logoiska qaabka loo sameeyo logooyinka dhaqaaqaya fiidiyoyada qaabka animationka loogu sameeyo advertisement animations amba qaabka xayeysiisyada aynu telefishinada inta badan ka daawanay animationka loogu sameeyo iyo dhammaan noocyada kala duwan ee animationka kooraskani waxa uu socon doonaa muddo 3 bilood ah haddaba haddii ciddii u diyaara waxay la soo xidhiidhi kartaa si faahfaahin dheeraad ah looga siiyo nambarada shaashada hortaada kaaga muuqda haddaba aynu u gudubno dhigashada duruusteennii amba cashirkeennan maanta in aynu u sii gudubno oo aynu dhigano bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal inagoo maalmahanba kusoo dhex jirnay casharadeenii kala duwanaa ee applicationkan Adobe After Effects walibana qaybteedii ugu horeysay ee hordhacyada ahayd casharkeennan maanta waxaynu ku baran doonaa transformka khaanada loo yaqaano animationka iyo walibana waxaad samaynaysaa qaabka uu yahay inaad eegto inta markan halka hadalka ka tago marka ugu horeysa sawir ayaynu soo gelin doonaa kadibna motion ayaynu ka dhigi doonaa oo inaba qaab inay u soo gasho iyo cayn kala duwan iyo inay animation nooca yeelato ayaynu samayn doonaa inagoo isticmaalayna inta asaasiga amba inta basica ee ku dhex jirta transformka hadday scale-ka tahay iyo hadday waxyaabaha soo dhantay haddaba halka hadalka aynu ka tagno aynu hawsha bilaawno kadib markaynu samaysanay composition loo yaqaan animationka oo halkan uu idinka muuqdo magaciisu dhererkiisu inuu yahay 20 sekin sida bartaaba idinka muuqata waxay soo gelin doonaa 5 sawir markaan soo qaadano waxaan samayn doonaa 5 sawir imika istul yeelan inaynu midmid kala qaadno goobo kala duwan ay ka soo galaan sawirkan ugu horeeya hadda soo qaato oo bartan dhigto imika sawirkan aan isagii sii dhex furto transformki waa kan transformkana waxyaabo badan baa ku sii dhex jira transformka waxyaabahan ku sii dhex jira marka hore waxaan leeyahay bartaasan positionkiisa ka dhigayaa positionkiisa marka hore bartaa intaan dhigo ayaan leeyahay position kadibna scale-kiisana waan weyneynayaa ilaa iyo intaas oo kale markuu yahay ayaan deysanayaa scale ayaan leeyahay isagana xajmigiisana inta ay guda laakiin se marka hore waxaan samayn doonaa inaanu xajmigiisa gabi ahaanba intaas oo dhan iga dhigin laakiin se xajmigiisa marka hore yareeyo marka waxaan samayn doonaa inaan yareeyo waan yareyn doonaa sidaasan ku deyn doonaa marka ugu horeysa kadibna markuu muddo socdo ilaa uu bartaas oo kala soo gaaro oo 4 sekin socdo ayaa waxaan oran doonaa hadana position kale oo anchor point kale oo soo sameeyay kadibna dib u weyneynaya inay la sameeyaan practical kuwa wax muhiim ah kadibna marka dib u soo weyneeyay imika sawirkii saas uu soo yaraaday kadibna saas uu soo weynaaday ilaa bartaa markuu soo gaaray inta dambe markaas saas uu weynaan doonaa kadibna waxaan sameeynaa bartaa markuu joogo sidoo kale waxaan oran doonaa opacity-ga inoo door opacity-ga markuu bilowga yahay ee uu yar yahay 0 ka dhig oo yaa waxba la arkin laakiin se marka uu weynaado ee uu bartaa soo gaaro waxa tiraa opacity-giisi hawada joogto sidoo kale imika hadaynu daawano aragno shaygeeni marka hore waa shay yar oo la arkin laakiin se marba barka dambaysa iyadoo la arkayo ayuu kor soo kacaya marka dambana saas oo ahaanaya sidoo kale hadaynu kuwan imika soo koobiyeyno labadan aynu control c nidhaahno oo bartan tagno hadana 4 bay ahayd 4 sekin bay ahayd hadana markaynu 8 sekin intaan tagno aynu ku koobiyeyno waxaad arkaysaa shaygu marka hore isagoo yar buu soo kacayaa uu soo weynaanayaa caadi buu soo istaagayaa hadana dib ayuu ugu noqonayaa inuu dib u sii yaraado sidoo halkaaba ku arkaysaan oo la arkaynin waxaan imika sameeyay animation aad arkaysaan inuu shaygu soo kor soo yaraanayo hadana hoos soo weynaanayo haddaba sawir labaad aan isagana soo qaato sawirkan aan inta kaga tago haddana sawirkan labaad isagana waxaan ka dhigaynaa inuu dhinacan ka soo geliyo marka hore dibadda iga wada saar barta transformkii soo fur position dheh markaan position idhaahdo bartaas ayuu dhigay oo waxa ku cadeynaysa inuu keyframe-ki yaraa ee blue-ga ahaa uu igu soo daray kadibna waxaan leeyahay markuu muddo saa u soo yaro socdo ee uu bartaas oo kale marayo 6 sekina ayaa waxaad leedahay inuu gudaha isoo wada geliyo amba inuu bartaas oo kale uu isoo dhigo bartaa markuu isoo dhigo hadana positionkii labaad amba keyframe-ki ayaan ku sameyn doonaa gudihii markuu isoo dhigay keyframe-ki ayaan u sameyn doonaa amba positionkii labaad ayaan u sameyn doonaa laakiin se waxaad ogsoonaataa mar walba xagga positionka uu
doonayso inaad dhigto meeshii markaad ka soo qaado goob kala dhigto isaga ayaa si automatic position isku siinaya oo imika haddaynu dib u eegno shaygeeni waxaad arkaysaa inuu dhinac uu isku soo gelinayo qaabka ayaa loo sameeyaa animationka sidoo kale shaygeena waxaan samayn doonaa inaynu rotation ka labaad ku darno maadaama aynu kii hore wax kale ku darnay bartanka ee 4 second ayaan istaajin doonaa rotationka ayaan dooran doonaa kadibna in yar oo waxoogaha rotation ah ayaan ku dar doonaa dhinaca saaha yar noqdo kadibna markuu ilaa xagga tagayo uu sii socdo rotationkiisa oo wata animationka nimka sameynay ilaa imiko waa animationka caynkaas oo kala shayadii ay saa soo kala galgalayaan ee haddana dib u kala noqonayaan inaad arkaysaan baan si fiican u jeclahay waxa sameeyay animation yar oo simple ah laakiin aynu doonayno inaynu ku fahanno 6 shay ee ku dhex jira transformka hadday aan carbon tahay hadday position tahay iyo hadday scale tahay iyo hadday rotation tahay waxyaabaha ay qabtaan inaad isku try garayso ayay u baahan tahay shay walba dhibicdaad halkaas samaysaa waxay ku xidhan tahay halkii sikin waxaad doonaysaa inaad half keyframe u samayso keyframe-kan wax kale maaha labada keyframe inta u dhaxaysa animation-kaad samaysay ayaa qaabka u samaysnaanaya oo shaygeena nimka haddaan saa kor ugu sii qaado oo nilaa bartaasoo kale dhig wuxuu samayn doonaa intuu u kala dhaxaysa ayuu bartaasa u kala tagtagi doonaa kolba meesha dhigto ayay ku xidhantahay keyframe-kiisa oo dhan inay wax noqoto laakiin haddaan nimka reset idhaahdo wixii hore oo dhan waxbaan ka wada bedelay reset ayaan odhanayaa wixii animation aan sameeyo dhan iga wada daabaan lahay waxaasoo dhan intaasoo dhan qaabkaas ayaad u samaynaysaa haddii kalena gebigoogaba intaad mar wada highlight garayso ayaad iska delete garaynaysaa oo imika rotationkii baanan ka delete garayn markaa rotationkiina waan ka wada delete garaynaa waxaad arkaysaa inuu bartiisii caadiga ahaa uu tegay laakiinse kii hore unba animationkii noogu haray 6 shay waa 6 shay ee intan ku qabta ayaa loo yaqaanaa transform amba ku midooba transform animation walba oo la sameynayna 6 shay waa 6 shay ee basic ah amba asaasiga mar walba isku daydana waa mar walba ka sii fahmayso waxyaabo kale 6 shay kuma kala duwanaa laakiin se waxay ku kala duwan yihiin shaqooyinka ku qabanayso opacity waa iftiinka aad soo arkayso ee ku muuqda oo sawirkan horeba aad arkaysa inaan marna qarinaynay marna aynu soo yareynaynay oo guud ahaan marna baan loo arkin marna la soo arkay oo labada keyframe midna markan ka dhigay 100% midna aan ka dhigay 0 de intan dhexdooda ay kolba isku sii dhex qaranaysaa sad arkaysaanba sidoo kale rotation kuwa kala wareejinta shaygan la kala wareejinayo oo imika sawirkaygan haddaan ku daro in yaroo kala wareejina waxaad arkaysaan inuu in yar dhinac isku leexiyay xajmiguna saasoo kale uu shaygeenan ayuu balciisa iyo ayuu weyneynaya xajmigiisii ayuu weyneynaya kolna yareynaya oo markaa sidii aydin hore u arkayseen qaybaheenii hore waxaad arkayseen inaan marna yareeyay marna aan weyneeyay qaabkaasoo kale animation-ka aan u sameynay uu soo weynaanay tadambana position-kuna waa goobta uu yaallo amba meesha aad dhigtay oo meelo kala duwan dibadda u soo sarto ayaad hadhow toona soo gelin karaysaa anchor point-kuna waa hareerihiisa qaabka aad ka dhigayso waxaan u malaynayaa inaydin wax badan ka fahanteen intaasoo shay mar walba doonayso intii shayad wax ka bedeshay inaad dib ugu soo celiso waxaad taaban karaysaa halka loo yaqaano reset amba waxaad delete garayn karaysaa dhammaan animationskii aad wax ka soo bedeshay adigoo intaad wada doorto delete siinaya intaasi waa qaababka iyo dariiqyada aad u samayn karaysid transformka aad wax uga bedeli karaysid casharkeenan maantuna wuxuu la xiriiray inaynu wax badan ka fahanno qaabka loo sameeyo animationka yar ee basica amba simbalka si aad wax badan uga fahantaan applicationkan Adobe After Effects projectyo dhammaystiran ayaynu min bilow ilaa min dhammaad samayn doonaa laakiinse intani iyo casharkan maantuba wuxuu ahaa intii amba qaybihii hore ee asaasiga ahaa casharkeenan maantuna bartaas ayuu inoogu joogayaa cashar la mid ah inta suugu iman doonana waa anigoo idin leh ismaqal aragti dambe oo xiiso badan